بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan u guda jirnaa barashada maadada daawada ama pharmacology-ga waxaan hor u soo qaadanay cashir koowaad chapter-ka labaad cashirkiisa koowaad aan soo qaadanay maanta waxaan qaadanaynaa insha Allah taala cashirka labaad ama chapter-ka labaad cashirkiisa labaad aan qaadan doonaa waxaan ku baran doonaa kaniin lagu magacaabo acetylsalicylic acid ama loo soo gaabiyay ASA waxa laga soo gaabiyay ama ay u taagan tahay acetylsalicylic acid ayaa laga soo kala gaabiyay saddexdan xaraf oo macnaheedu tahay aspirin ama aspro waa commercial name acetylsalicylic acid kana waa chemical name ka daawada ka samaysan tahay xarfaha la soo gaabiyo waxa laga soo gaabiyaa ASA oo provide name ka marka ASA hadii aad aragtid waxay u taagan tahay aspirin ama aspro inta baa dhihi kartaa therapeutic action ka daawadani maxaa loo isticmaalaa ama daawadani maxaa lagu daaweeyaa waxa loo isticmaalaa analgesics waa xanuun baabiye antipyretics waa qandho jabiye anti-inflammatories waa holac baabiye ama qofka markaas xanuunada halista hayo kale ayaa lagu yareeyaa si la mid ah aspirin waxa loo isticmaalaa in lagu dajiyo dhiigga cholesterol-ka ah markuu dhiiggu kacsan yahay oo dhiig markuu degan yahay oo dhago kale ayaa markaas loo isticmaalaa in dhiig lagu kala bixiyo maadaama cholesterol-ka uu yahay dhiig dhagay ama xinjiro ay tahay oo dhuumaha dhiig mareynada ay markaas istaagay marka aspirin-ka ayaa waxaa loo isticmaalaa in dhiiggaas uu kala furfuro si la mid ah haweenka xilliga dhiigga xeelka ama caadada oo kale aspirin-ka waa la siin karaa maadaama dhiiggaasi istaagay ama dumarku istaago kale loo baahan yahay in dhiig lagu kala furfuro laakiin aspirin-ka waxa mamnuuc ka ah in la siiyo qof dhiig baxay lama siin karo sababtoo ah qofka dhiig baxay hadii la siiyo daawadan waxay keeni kartaa dhibaato badan leedahay ama dhiig bixi ayaa wax dhici karto inuu dhiig bixi sii siyaado qofkaas lama siin karo qof sidoo kale gaaska haayo oo kale lama siin karo aspirin-ka ayada dhibaato ay ku tahay indications maxaa loo isticmaalaa mid aan modern pain waxa lagu daaweeyaa aspirin-ka xanuunada markaas yarka ah iyo kuwa markaas modern-ka ah ee loo isticmaali karaa fever waxa lagu daaweyn karaa qandhada waxa loo isticmaali karaa waxa la yiraahdo rheumatic disease-ka cudurrada markaas lafa xanuunka lagu daaweyn karaa aspirin-ka si la mid waxa lagu daaweyn karaa cholesterol-ka loo isticmaali karaa preparation-ka daawadan waxay ku diyaarsan tahay 100 mg 500 mg sidoo kale waxay ku iman kartaa 75 mg ay ku iman kartaa dosage-ka ama qiyaas la qaadan karo maxay tahay ayadana qiyaasaha la siin kara caruurta 60 mg marka 60 mg oo kala tusaale ahaan marka ay tahay kg-ga waxa loo fiirinayaa deeyga inta maalin la siinayo iyo waxa loo fiirinayaa kg-giisa qiyaasta ku soo baxda 3 waqti ama 4 waqti siin karta dosage-kaas u qaybinayo araltina waxa siin kartaa 1 ilaa 3 gram-ka ayadoo loo fiirinayo inta maalin la siinayo 3 ilaa 4 days-ka ayaa u qaybin kartaa dosage-ka inta ku soo baxday inta maalin uu socon karna waxay ku xiran tahay xaaladda bukaanka inuu caafimaadiyo in kale ku xiran tahay hadii bukaanku caafimaad ka jooji haduu caafimaadina qandho jabiyaha ayaa siin kartaa wax dhibaato leh markaas kuma sugna qofka aan la siin karin daawadan waa maxay waa contraindication-ka daawadan qofka aan la siin karin gastritis dadka gas qabo kala buqcaloleedka lama siin karo asma dadka neefta cudurka neefta qabo kala lama siin karo sidoo kale ha siinin caruurta ka yar halka sano don't give a children under 1 year hal sano ka yar lama siin karo hooyada uur kale contraindicated ku yahay lama siin karo from the beginning of the 6 months laga bilaabo 6 bilood ee ugu horeysa lama siin karo waxa u siin kartaa oo kaliya breastmolcy ama breastmol isticmaasho breastfeeding is contraindicated si la mid ah hooyada naaska nuujinaysa lama siin karo aspirin lama siin karo hemorrhage qofka dhiig baxay lama siin karo aspirin lama siin karo waa halis side effect waa maxay dhibaatada keenayaan yeelan karaan allergic ayaa ka mid ah allergic action inay markaas qofka xasiid ku keento labo gastric burden inay qofka ku dhaco kale dhiig bax ama gas markaas qof inuu matag badan oo keeno oo qofkaas loo mataga dhiig way keeni kartaa marka qofka gaaska ku dhacay oo kale oo qabo kale la yiraahdo gastric abdominal oo kale halis ay ku yaalama si aspirin-ka wuxuu keeni karaa marka dhiig inuu qofka soo matago sidoo kale dizziness qofka sidoo kale wareerka qabo oo kale ayadan lama siin karo ayadan halis ay ku tahay marka intaan ba lama siin karo qofka dabaqaadka ama wareerka qabo oo kale ayadan lama siin karo marka halkaas ay ku ogyahay kaniinigii lagu magacaabay aspirin-ka kaniiniga xigana waxaan ku baran doonaa insha Allah kaniin lagu magacaabo metronidazole ama sidoo kale kaniin la yiraahdo Novalgin ayaan ku baran doonaa hadal subhanahu wa ta'ala uu qadaro halkii clip oo waxa uu markaas ka kooban yahay hal daawo
ayaan ku baran doonaa si muhiimadda waxay tahay in la xifdiyo qofka la siin karo qofka la siin karin miligaraamka in la xifdiyo ayaa muhiim ah in laakiin la iska wado wixii dhibaato badan ay keeni kartaa muhiimaddu in la xifdiyo maadaama qof bini aadam la daaweynayo laguma day kara daawada farmakolojiga ah barashadeeda waxay u baahan tahay xifdin fara badan marka insha Allah halkii clip waxaan ka dhigi doonaa hal daawo si markaasi fahankeedii noogu markaasi bato halkaas ayaan ku soo koobay insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh